oo ilaahay u dhawaado oo acmaal saalixa samaynayo haddana wuxuu qabaa warwar ah ma noqon karaan camalkani mid ilaahay agtiisa la qadariyo mid la qiimeeyo mid alla aqbalo waayo acmaasha bini aadamka wax badan baa ku xeeran waxaa ku xeeranna waxbaynu ka tilmaami doonaa caaisha radia allahu canha ayaa waxay nebi moxamed weydiisay calayhi الsalaatu wasalaam suuraة اlmu'minuun aayad ku jirto ilaahay leeyay wاladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila anahum ilaa rabbihim raajicuun ilaahay wuxuu leeyay wاladiina kuwii yu'tuuna bixinayay maa aatow waxay bixiyeenee juhdi ah ee camal ah ee sadaqa ah ee maala waxay bixiyeen kuwa bixiyey iyagoo waquluubuhum wajila baa ilaahay leeyay iyadoo qalbigoodu uu baqaya cabsi ku jirto waayo annahum ilaa rabbihim raajicuun ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquun baa ilahay yidhi waxay weydiisay caaisha kuwa kan wax sameeyey ee haddana cabsanaya ilaahay rasuulkiisiyo ma kuwa khamriga cababa mise waa kuwa waxaday ila kuwaasaa intay camal xun sameeyeen hadday mu'min yihiin haddana cabsan lahaa nebigu wuxuu ku yidhi laa yaa binta sidiiq caaisha ina sidiiqay warku sidaad mooday maaha buu nebigu ku yidhi walakinahum aladiina yasuumuun wayusalluun wayatasaddaquun wahum yakhaafuuna an laa yuqbala minhum ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat caaisha waxa weeyaan buu yidhi waa kuwa soomaya oo salaadaya oo wax la baxaya laakiin haddana weli alle ka cabsi qaba oo waxay ka cabsi qabaan armay tii la aqbalayay noqon weyda su-aasha isweydiinta le waxay tahay markaa mataa yuqbalu lcamal ducooyinka ilaahay qur-aanka uu ku soo arooriyay waxaa ka mid ah nebi ambiyada ka mid oo ducaysanayoo leh waan acmala saalixan tardaahu ilaahayo waxaad i waafajisaa camal saalixa camalka saalixi waa camalka maxay leh waa camalku qofku isagoo mu'mina uu la yimi isagoo arkaantiisi iyo shuruudiisii wata la yimi oo tardaahu aada raalli ka tahay buu leeyahy culamadu waxay yidhaahdaan faraq baa u dhexeeya bayna asixati waalqubuul had iyo goor fuqahadu waxay ka warramaan tasxiixu alcamal aw sixatu alcamal oo arkaan iyo shuruud iyo wixii uu leeyahy yani camalka maalan salaada haddaad soo weysaysato oo waktigeedii tukatid oo arkaanteedii iyo shuruudeedii la timaadid waa tujzi ay tasix aakhire laguu qabsan maayo maxaad salaaddii u tukan weyday laakiin hawaab ma helaysaa maqbuul matay nebigu wuxuu yihi qaar baa salaad tukada oo aan salaadooda helin ilaa cushuruhaa tusucuhaa humunuha intaasumaa maqbuula markaa bay culamadu yidhahdaan mid baa salaad tukada oo salaadiisa leh 10 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan 10% yacni salaadda markaad tukato intaad khushuucdaaba hawaabkeeda weyn leeday intaasaa inta alle agtiisa laga aqbalo markaynu salaada tukanayno intaynu soo jeedna intaynu see maqannahay taa daraaddeed bay culammadu waxay dhahdaan mas'aladu camalku horta lama aqbalo haddaanu asixin marka hore waa laabud min sixa shuruudu saxiixnimadii waa inuu wataa waa mar labaade waa inuu wataa wixii lagu aqbalayay oo waxa lagu aqbalayaa mawaanic daakhiliyana way jirtaa mawaanic khaarijiyana way jirtaa yacni maalan inuu ikhlaas ku jiro waa shuruudu sixaana waa ka tirsanya mawaanicdii daakhiligaana waa ka mid oo waa maxay camalka hadduu istuskaa galo dee inaan la aqbalayn waynu wada garanaynaa riyaa iyo sumca iyo waxaasi hadday ku jiraan mararka qaarkoodna waxyaabo khaarij camalka ka abaaba buriya marka gaalnimadii iyo riddadii laga yimaado dee waxaa la tilmaamayaa oo qur-aanka ku soo aroortay laa tubtiluu acmaalakum laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa
صدقاتكينا هكو برنينا محي شاقشو يا أذية هداد wax bixiso laakiin habeen iyo maalin baad sheegayso ninka hebel bari baan saaw galo bari baan wax siiyay daada burinaya wixii sadaqadaadii aad hore la u dhiibatay waxaad ka daba geynaysaa maxay wax burinayo qabuulka u diidaya idan qabuulku sixada waa shardi oo shuruudii sixada waa la rabaa مثلا لا يقبل الله الصلاة بغير طهور ولا صدقة من قلول صدقة لما أقبله توقع كتمي هي صلاة عن محي طهارة لهي لما أقبله لكن وحيابها الدبدة كأنا كوا ما هكوا نصعد أمر كانوا لكن تصالي يلبك بحنية مثلا نكي حاران تكدر جي محنا بيقول يرجع ما كرو تاجي مد صوب بصاصة وحيل وحلوقه أقبل شريقار كمدا يكم مغضان لكن ليري ملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له بالنبي يقول كاسي وحلوقه أقبليا مثلا النبي يقول حتى المامل dadka acmaashooda in la aqbalayo ilaahay loo bandhigo oo dambigooda la dhaafayo dadka oo dhan laba dadka muwaxidiinta laba la yiraahdo iyaga waxooda dib u celiya waa kuwe waa labadii iska laalaaday is haystay andiru hadayni hatta yastariha baa la yiraahdo labadan intay ka heshiinayaan warkooda dib u celiya idan waa amal kharij ka ah acmaashi aad la timay kala xasanaadka idin ilaahay hortagto waa amal kale kharij ka ah مثلا kuwii uu nabigu tilmaamay salaadooda taaka in la kor looma qaado imaamaanay dadku ka raalahayn mid baa iska kiin qafsaday oo dadka tukiyo uun salaadiisu taaka korkeed ma maraysa baa la yiri ummadda muslimiinta ah wixii ka dhaxeeya qasabka iyo boobku ma jiro wala masaajidka wala madaxnimada wala meel laba qasab ma jiro ولذلك إمامك دتك بابا ربا إنه قسم كنت تشكيه سلادي سوى حلا يدي تاكا كور مدحي سما دافته إذا واحد شرا وحيابا بدنا أعماشا سوء علين كرا قبول كودي دي كرا ساد ردد أيها إلهي قرآن وحنا قلت المام يلي يبلوكم أيكم أحسن في سورة هود في سورة الملك هذا بقى أيها الأحبة وحين بهنا أعماشين صالحة وحيابها labayo oo dhan inaynu ka miidhno inaynu hufno oo buushaha iyo jiriidha iyo waxaan soconayn ishiya baalkaba ka reebno ishiya baalkaba inaynu camalkeena saalixa ka reebno waxa kaloo jira waxyaabo lagu kabo camalka saalixa in rabbi ka aqbalo kaanu socda markaa waa waxaan lagu kabo waayo kuwa shuruudu saxiix hore intaan camalka la bilaabin baa iyaga la sameeyaa intaan camalka la bilaabin ayaa shuruudu saxiix la sameeyaa hadda waa soo tukanay bil dhan baynu qiyaamul leyl u taagnayn oo ramadaan dabayaqadeedii baynu joognaa 8 lacalla inay berri un ka hadhay hadday badatana in maxay 2 casho ka hadhay idan waa soo soonnay waa soo tukanay faradkii qiyaamul leyl baan soo samaynay acmaal badan baan soo samaynay waxaynu u baahanay waxyaabo aynu rabno inaynu ku kabno haddaba sin alla u aqbalo quraanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyadiisii iyo dad saalixiina oo acmaal wanaagsan samaynaya haddana wax ku ladhaya quraanku wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil oo ilaahay beytkiisa kacbada beytullaahi alxaraam dhisaya kacbaday dhisaya waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciilu laakiin maxay ku ladhayaan bikathrati adducaa'i waalrajaa inay ilaahay baryaan in badan rajeeyana inuu camalkaa ka aqbalo camalku waa camal saalix ay wadaan oo ilaahay beytkiisii gurigiisii bay dhisayaan haddana wuxuu leeyahy rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim rabbanaa taqabal mina ilaahay naga aqbal buu leeyahy camalkaa adiga asamiicu alcaliime rabbanaa wajcal muslimayni wajcalnaa muslimayni lak ilaah waxaad naga yeeshaa laba muslima waa muslimiin imikaba laakiin wuxuu leeyahy ilaahu islaamnimadayada aqbal oo kuwa kuwaara naga dhig camalkooda kuwa la aqbalo naga dhig waxa kaloo quraanka ilaahay ka warramaya maryama hooyadeed imraatu cimraan ummu maryama ayaa ilaahay ka warramaya oo caloosha waxay ku siiday ilaahay hortii ula baxday ilmay sadaqadaysanaysaa oo waxay ku sadaqadaysanaysaa masaajidka inuu noqdo qof ka shaqeeya oo khaadim masaajid u abay rabtaa inuu noqdo dabeetana waxay leedahay id qaalat imra'atu cimraana rabbi innii nadartu laka maa fii batni muxarara ilaahayow adaan kuu nadray waxa calooshayda ku jira adaan kaaga dhigay
inuu beytkaaga ka shaqeeyo adaan kuu nadray maxay laakiin leedahay fataqabbal minii innaka anta asamiicu alcaliim bay leedahay ilaahu iga aqbal bay leedahay adaan kuu nadareeyey rabbow iga aqbal ilaahay wuxuu qur-aanka inoogaga warramayaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam salaad buu tukanayaa haddana ilaahay weydiisanaya kuwa salaada ooga inuu ka dhigo yacni salaaddiisu mid la aqbalo oo nooca la aqbala inay noqoto rabbi ijcalnii muqiima asalaati wamin duriyati rabbana wataqabbal ducaa idan culimmadu waxay idhahdaan ambiyada iyo saalixiintu marka hore camalka way ka dadaalaan inuu camal saafiya noqdo marka ay dhammeeyaanna baryada rabbay ku daalaan in rabbi ka aqbalo camalkaa ay la yimaadeen in rabbi ka aqbalo ayay ilaahay subxaana wa tacaala in badan ku baryaan waayo qur-aanku wuxuu inooga warramayaa qaar la yidhi haddaad bixisaan oo tawcan a u bixisaan iyo qasab haddaad ku bixisaanba waxaa bixisaan la aqbali maayo qul anfiquu tawcan aw karha lan yutaqabala minkum inakum kuntum qowman faasiqiin baa ilahay yidhi qola munaafiqiina fii suurati tawba ilahay ka warramo waxaa la yidhi anfiquu tawcan aw karha ama qasab wax ku bixiya ama idinkoo aqbashan bixiya lan yutaqabala minkum baa la yidhi laydan ka aqbali maayo waayo faasiqiin baa tihin baa ilahay yidhi fisqigooda wax ka mid a ilaahay haddana aayaad kale ku tilmaamaya wuxuu leeyahy wamaa manaca an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu biاllahi wabirasuulih walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun gaalnimada waa la sheegay waxaa kaloo la raaciyey salaadda iyagoo caajisay tukadaan baa la yidhi iyagoo aan nashaadba ku jirin bay ilaahay is hortaagaan waxaa kaloo la yidhi waxay wax bixiyaan iyagoo karaahiyeysan haddaad miskiinka wax u siiso maruun ha kaa tago kanuun ha kaa hadho dee dar ilaahay uma eka ee waxaad dar ilaahay u bixisaabaa la aqbalayaa saa daraaddeed qofka mu'minka ahi masaladaynuu soconnaa waa maxay in shaa allahu haddaad mu'min tahay oo camalkaagu saalixiya waa la aqbalto maca kulli dalik ilaahay makrigiisana duulka khasaaray unbaa aamina afa aaminuu makra allahi falaa yaamanu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nebi ibraahim oo maxay leh waaladii aطmacu an yakfira lii khatii'atii yowma ddiin wuxuu camal samaystay iyo nebinimadiis iyo wixii oo dhan wuxuu arkaa inaanay qasab ku ahayn in laga aqbalo laakiin wuxuu leeyay waaladii aطmacu kan hunguraynayo inuu dembigayga dhaafo ilaahay hunguraan ka qaba amac baan ka qabaa amac waa hunguri oo waa maxay acmaashaad samayso oo dhami shukriga ilaahay ma goyso xaqa taqwaa iyo xaqa jihaadi iyo xaqa shukri ma gaadho waxa ilaahay nimco ku siiyey abaalmarkeedii ma goyso intaad waddaa waxaad dembi gashayna waa kuu dheeriyeen waxaad dembi gashayna waa kuu dheeriyeen indhahaa la ku siiyey ama wadnaa lagu siiyey ama kaliyaa lagu siiyey waxaad haysatoo dhami ma gooyaan idan waxa nimco alla ku siiyey shukrinaqeedii maad dhamaynin inaad sayi-aadkaaga ay tirta mooyaane laakiin ilaahay baa wuxuu yidhi haddaad in yar la timaado uun waan kaa aqbalaya intaasaan dembigaaga ku dhaafaya waa min fadlih saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay nebi ibraahim waaladii aطmacu an yakfira lii khatii'atii yowma ddiin saa daraaddeed buu baqayaa naftiisa wuxuu rabaa nafta aamin lagama aha inay dib u noqoto ilaahay baa ku hanuuniye kama faridsanid in badanoo lunsan markaasuu wuxuu leeyay wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahu aniga iyo intaan dhalayba gaalnimo inaanu dib ugu noqonno gaalnimo asnaamta inaanu caabudno ilaahu naga foge ilaahu kuwa salaada ooga naga dhig haddaba qur-aanku wuxuu inooga warramayaa dadka saalixiinta ahi iyagoo cibaadada u taagan oo dadaal intii ay kari karayeen sameeyey inay haddana ilaahay baryayaan inuu ka aqbalo ilaahay baryayaan inuu cadaab dhaafiyo ilaahay baryayaan inuu janno siiyo cibaad الرaحmaanka marka ilaahay fii suurati furqaan ka warramay wuxuu leeyahy wاladiina yabituuna lirabbihim sujada وqiyaama wاladiina yaquuluuna rabbana اصrif cana cadaaba jahannam ina cadaabaha kana garaama kuwa habeenkii hoyda iyagoo sujuudsan ama taagan habeenkoodu saasuu ku dhammaadaa haddana waxaa la socda inay ilaahay baryayaan oo maxay leeyiin
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. في سورة الزمر إلهي وحط المامية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إلهي وحلي ميي سمين ميي إجيهين كو هبينكي إلهي الطاعة سو تاغن وهبين ودن تاغن يقوى ساجدا وقائما متاغن أما سجود سنة وهدنه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. آخرنا كعب سقبه هدنه إلهي نحرستي سنة الرجينية قفك مؤمن كي وبين الرجاء والخوف لابد وقوة الجيران. خوف قرا هدوك قدعه يأسي باكو قدع يا الله كما باهنا. رجاء قرا هدوك قدع أنا غرور باكو قاضي يوم ده عماشات واحد صارن سادوها صفقة هورات كتشرتاي وحباب بتصنن هدوك كنت الله أقبلات كم تهاي. إذا ما تكتسوميسا قفك مؤمن كي وامحي وبين الرجاء والخوف ساد ردد بوحة ليدي كوا ريواني تاجين هبين ودن عمل كوا إلا إيمانيان هدنا مع ذلك يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. آخرنا وكعب صنية وكدكتوني إلهي نحرستي سنة وسجية والرجينية مية سمين با إلهي لي كوا وحجرني يكوا وحجرني وحجر شذا رسمي يلا شيء وكوا إلهي حقي سجرني السيدن يلا يا آيات المامت يكوا أنجرني نكان إلهي حقي سجرني وحب جرن مايو وحق جرن يكله معنى بدن ماله وحي معنى لها بجرن واي. إذا وحيلين كوا وحلينو جبا هي أعماشنا إنه كده داله عبسيدنا إنه قشرتوا إنه إلهي إن بدن برينا إن ربي نجا أقبله وعمل كصالح إنه صبينا بريء إنه كدره كاسوامد متكلمات أنت المام يا وحويان استصغار العمل وعدم العجب والغرور به وحنا أعمال صبينا نور دمينا إن لا يرات وأنا إن لوينان وهي وحنا صوت المامني قفك مؤمن كاهي وحر رميسي إلهي شكر يسوق إيران دمينين إلهي مهدنقي سوق إيران دمينين إن وحكله رادسيو واجب الداية هالشيء قفك مؤمن كي مركو أجي إلهي وحر نعمة سيي إسلام مركانه وأجي وحر معصيك على ذنوب سميي وحكستو عمله سميي لما بور إلهي نحرستي سورة جينية صدر ردد با إلهي آيات كي لبادي كسود دقى النبي محمد في سورة مدثر محل يدي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كان اسداد يوم كعود دقبال يدي وربك وينيه وقلبك يا مريها يا شركك يا جودك يا جودها قبا طاهريان وحمها كديرو وحلو قدري ولا تمنن تستكثر. حسن البصري تفسير كيسو حلي ولا تمنن بعملك على ربك تستكثره. عمل كاد يرات سميستي إلهي هوقم من نشي جنن يسقوا كل بديه قارب إلهي قرآن كوحو كت المامي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. إن إسلامين بيكو قلت شيئا ينبا إلهي war islaamnimada ha ku gallad sheeganina baa ilaahay yiri ee rabba idin ku gallad sheeganaya inuu idin islaamiyay inuu diinidiisa ku islaamtaan oo idin hanuuniyo rabba idin gallad sheeganaya baa la yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam xalalay marka la tamnun bi'amalika ala rabbik adigoo dacwo iyo diin iyo jihaad u kici doona haddana waxa aad samaynaysaa amal iyo kula buuranin oo intuu kula bato ilaahay ugu gallad sheeganin. ولذلك باب ابن القيم رحمة الله عليه وحلقة شيئين يري قفك حاضرة أما قرطة حقيقة رب النمضة إسلام مركانا قرطة حقيقة الدون نمضة قرطة الله سبحانه وتعالى نفتي سنة قرطة بولي وحاو عدانيسة وحاو تجارة هيستا إنا وح إلهي لا هرتقا إنا نهيم باو عدانيسة بولي إلهي النمعدي سيء وحكو السيء مركات قراتية وينيدي سيء وحو حق مطو إيا بضاعة هذا
waxaad wadata iyo yaraanteeda ama foolxumadeeda wax ilaahay lala hortago inaan hayn xataa buu leeyahay haddii camalkaagu yahay camalka thaqalaynka oo dhan khashita caaqibata ciribtiisaad ka cabsanaysa ilaahay maxaa lala qaabilaa buu leeyahay ilaahay waxaad la qaabilaysaa karamkiisa iyo juudkiisa iyo fadligiisaad wax ka raadacaynaysaa rabbigaa ina abuurtay waa kariim waa jawaad waa ilaah deeq badan walidaalika baa qur-aankii ugu horreeyay nebi maxamed ku soo dega ilaahay wuxuu isugu keen sheegay inuu kariim yahay iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam baa ilaahay yidhi iqra akhri warabuka alakram iyadoo rabbigaa uu yahay alakram ilaaha kariimka wax bixinta badan leh ilaahay fadligiisa aynu raadacaynayna markaa karamkiisa ayaad raadacaynaysaa waxay culimmadu yidhahdaan camalkaaga in la aqbalay waxyaabaha aad ku dareento waxaa ka mid ah daacada kusii badata haddaad aragto qofka oo waddada laazima waa tusaale ama waa tilmaam aynu rajaynayna in ilaahay acmaasha ka aqbalay haddaad aragto qofka oo labaclabaadiisu badato hor iyo dib u socdana shaki bay leedahay se qofka oo qumanaado toos u socda haddaad aragto oo macaasida ka fogaada waayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa fa amaa man acطaa waataqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra waama man bakila wastaghnaa wakadaba bilxusna fasanuyasiruhu lilcusra ninka acطaa mafcuulkeedii lama sheegin acطaa juhdahu kullah maal iyo xoolo iyo naf iyo wax walba qofka bixiyey oo wataqaa ilaahayna ka cabsaday wixii laga rabayna waa la yimi waxaana ula socday inuu ilaahay ka cabsanayo wasadaqa bilxusna xusnada tan mar waxay ku sheegaan culammadu kelimatu laa ilaha illa allah rumeeyey tawxiidkiisiina haysta marna waxay yidhaahdaan waa ilaahay wacdigiisa iyo yaboohiisana rumaysan janno iyo waxa alla ku baaqay kaa fasanuyasiruhu lilyusra baa la yidhi ta fudud baa loo fudaydinayaa idan haddaad aragto iyadoo daacada laguu fudaydiyey waxay u muuqataa bay leeyihiin acmaashaadii hore in la aqbalay waayo jidkii ayaa alla kuusii fudaydiyey ilaahayna waa ka qur-aanka ku leh wayaziidu allahu aladiina ihtadow huda ilaahay wuxuu u kordhiyaa kuwii hanuunay hanuun baa loo sii kordhiyaa adigoo daacada sii laazimaya haddaad aragto bushaarayso waxay u badan tahay intii hore in alla kaa aqbalay intaa kadib waxaynu leenahay waxaa jira waxyaabo lagu kabo camalka aynu u baahanay inaynu ku kabno oo waxay yidhaahdaan istikfaartu ilaahay dembi dhaafka la weydiistaa waa laba shay had iyo goor markaynu istikfaar sheegayno dembi dhaaf baynu ku fasiraa laakiin ma aha af carabi ahaan wuu ka ballaadhan yihi say culammadu u sharxaan waayo waxay leeyihiin istikfaartu dembi aad rabto in lagaa dhaafana way tay waxay kaloo tahay bay yidhaahdaan jabraanu naqs iyo ictidaarna way tahay bay yidhaahdaan camalkaaga wixii ka dhinnayo adada ilaahu intaasaan awooday adigu ii dhammaystir iyo ictidaar tusaalaha bini aadamku wax ku fahmaayo tusaalahan ku siiyo qof abaal kugu leh ama xaq kugu leh ama aada weyneynaysaa kuu yimi markaasaad rabtaa inaad wax siiso casuuntid wax u qabatid laakiin haddana waxaad dareemaysaa abaalku qofkani kugu leeyay iyo waxanaad wadaa inaanay isu cuntamin inaanay isleekayn adigu intii aad awooday waad la timi laakiin abaalkii lagugu lahaa maad gudin maxaynu ku darnaa markaa cudurdaar baynu raacinaa waxaad tidhahdaa dee wejiga waxaan aan ku siinaya wax kuu cuntama maaha ama wax kuu qalma maaha ama erayada tan maxaynu uga jeednaa adaana wax bixinaya haddana erayadan waxaad rabtaa inaad muujiso abaalka lagugu leeyay inuu ka weynaa waxa aad bixinayso walidalik baad eraya ku daraysaa iyo kalimaad fiican adigoo raba inuu qofka kale aqbalo cudurdaarkaaga oo inta tan uu arko nin abaal gudayo at least inaad tahay tamarta meesha ku dhigtaye nin raba inuu abaal gudo inaad tahay istikfaartu markay cibaadaadka daba dhacdo waa sida tan oo cibaadaadka iyo daacaadka waaweyn ee layna faray oo dhan waxaa daba yaalla istikfaar maalan xajku waa arkaanulislaamku ka mid yihi cibaadaadka la sameeyo kuwa ugu waaweyn buu ku jiraa
goob la istaago goobaha ugu waaweyn ee bini aadam ilaahay caabudaya istaagana carafa ka mid ah markaad carafo istaagtay ee ilaahay maantoo dhan weynaynaysay ee baryaysay baa ilaahay wuxuu ina yidhi uma afiiduu min xaysu afaada annaas wastakfiru llaha in allaha gafuurun raxiim istaaga baa ilaahay yidhi halka dadku istaagayo qurayshi waxay odhan jirtay xaramka annagu ka bixi mayno carafi xaramka way ka baxsantay markaa muna iyo intaan xaramkaanu joogaynaa waxaa la yidhi baxa oo taga halka dadku istaagayo oo weliba halkaa markaa istaagtaane soo dareertaane dib u soo noqotaan waxaa camal samayseen oo dhan waxaa ku dartaan istikfaar baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala yani xaj inagoo ku jirna baynu ka dabageynaynaa maxay istikfaar waxaa layna baray oo nabigu ina baray calayhi salaatu wasalaam salaada markaynu tukanno waxa koowaad aynu qabanaa waa maxay nabi maxamed markuu salaamo naqsado kow 3 jeer buu odhan jiray astaqfirullah 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 ma macsi buu samaynaya oo ka astaqfirulaysanayay maya salaad buu ku jiray laakiin waa maxay wuxuu leeyahay ilaahu xaqaagii weli maan gudin anigu intii aan awoodayay waan sameeyey waynu soo dadaallo weysaysanno soo kacnayo ilaahay hornimi ilaahay way soo taagnay intaynu awoodi karaynay waa dadaallo waa samaynay laakiin waxaynu rumaysannay marar badan baynu baxaynay oo qalbigeenu meel kale jirnay mar baynu waxaynu akhriyaynay ayna fahmaynay mar baynu adduun iskaga mashquulay haddana salaadaynu wadnay dabeetana waxaad leedahay ilaahu intaasun baan maanta awoodaya intaa iga aqba waxaad ka dabageynaysaa markaa maxay istikfaar markaad salaamo naqsatayba waxaad leedahay ilaahu xaqaagii maan gudanin istikfaartani waa ictidaar markaad raacinayso ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa kuwa jannada gelaya ina almuttaqiina fi jannaatin wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum inahum kanuu qabla dalika muxsiniin kanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun ilahay wuxuu yihi kuwa muttaqiinta ah ee alle ka cabsaday aakhiro beero iyo ilo biyood iyo jannooyin bay leeyihin aakhidiina maa aataahum rabbuhum waxay qaadanayaan wixii alla siiyey baa la yidhi nicmo ah ayay aakhiro helayaan laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sababtu waa maxay inahum kanuu qabla dalika muxsiniin adduunkii markii ay joogeen ayay ahaayeen dad ixsaanka sameeya muxsiniina kanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun habeenkii in yar bay seexan jireen baa ilaahay yidhi u fiirsa haddaba erayga la daba dhigay wabilasxaari hum yastakfiruun waqtu suxuurka markay gaadhana istikfaar bay u fadhiisan jireen habeen oo dhan intuu cibaadaysto ayuu wuxuu ku gabagabaynayaa salaadiisii istikfaar uu leeyahay ilaahu intaasaan la imi xaqaaga se maan gudanin waxaanaan sameeyey caawo dhan la soo jeeday ilaahu maaha adiga xaqaagii waxaad xaq u lahayd saa daraaddeed ayay istikfaarka dabageynayeen ilaahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay faclam annahu laa ilaaha ila allah ogow alle inuu keligii yahay ka xaq lagu caabudo masaladaa yaqiinso oo yeel oo wastakfir lidambika walilmu'miniin baa la yidhi ka dabagee haddaba ayuha alaxiba masalada istikfaartana waxaan ku khatimayaa nebi maxamed 23 sannadood buu jahaatamayay oo ilaahay diintiisa wax waliba ku soo gaadheen oo loo dhibay oo loogu hijrooday oo dagaal nooc waliba uu soo galay oo siiradan aynu akhrinay tirada badan leh ay soo marto 23 sano kadib aakhir suurad ahaan nebi maxamed ugu soo degta bal waxa alla faraya u fiirsa haddaba suuraddii ugu dambeysay qur-aanka iyadoo suuradoo kaamila soo degta weeyaan waa suurati nasr ilaahay wuxuu ku yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam idaa jaa nasru llahi walfatx warayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu inahu kaana tawaaba markaad aragtee uu kuu yimaado baa ilahay yidhi ilaahay guushiisu marka hore nasriga iyo fatxigaba ilaahay baa siiyey waa min nicam illaah ilaahay guushiisa iyo furashadiisu markay kuu timi aada maka iyo adduunba furatay oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illaahi afwaaja oo aada aragto dadka oo diinta koox koox u gelaya waagii hore islaamku uu bilow ahaa nebi maxamed isagaaba la caydhsanayay kadib qof baa qarsanayay qof baa intuu islaamu odhanayay orod reerihiinii qabo barigaad maqasho waa guulaystuunii kaalay saasay ku socotay
ilaa iyo ay soo gaadhay markii dambe qabiile in loo islaamo afwaaj koox caamil wufuud nabiga calayhi salaatu wasalaam qabaa'il dhan oo maca salaadiintoodii iyo waayeelkoodiiba wataa u yimo soo islaamay haddaba markaad sidaa aragta maxay samee baa ilaahay ku yidhi aadanaha aan rabbigood xoog u qadarini markay guulaystaan maxay sameeyaan badhbadhaadhna bay qaadaan dee maalinta xorriyaadka maxaa la sameeyaa muruqa la muujiyaa iyo waxaad xoog leedahay waa qofka oo isla weyn wuxuu qabtay ay la weyn tahay markay calanka helaan balkaalay canabay bay qaadaan calanka walacle halkuu qofku isdhul dhigi lahaa odhan lahaa ilaahu adaa guushiyo nasriga ay siiyey ayuu kibir ka qaadaa laakiin nebi maxamed waxaa la leeyahay markaad guulaysatay maantuuma ka furanaya guulaysanayay neefku fuushanaa isagoo ku dul sujuudsan oo madaxu hoos u laalaadu nebigu soo galay calayhi salaatu isagoo mutakabiroo isweyneynaya muu soo gelin saa daraaddeed ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho ee aada aragto dadkoo diinta koox u soo gelaya maxay samey baa lagu yidhi fasabbix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku marayo ku dheehaya ilaahay xamdigiisa tasbiixdu waa maxay tasbiixdu waa tansiih waa ilaahay oo waxaan u cuntamin aad ka nasahayso ilaahay oo aada xumo iyo ceeb leedahay waa ka hufanye waa ka dheeriye naqsi male ilaahay taxmiidu ama alxamdu lilahna waa maxay waa ilaahay oo aada ammaanayso bikamaalihi wa kamaali afcaalihi aada weyneynayso ku weyneynayso acmaashiisa fiican idan waxaa la yidhi markaad guusha aragto ee dadku diinta koox u galaan ilaahay weyneeyo xumo ka huf ammaan oo ammaantu xaq u leeyahay ammaan adiguna wixii aada camal la timi wastakfirhu inahu kaana tawaaba ilaahay u toobadkeen baa la leeyahy oo istikfaarso wixii ilaahay waan xaqaaga ka gaabiyey wixii camal tuurla aan la imi waxaan kuu cuntamayna aan sameeyey ilaahayow iga aqbal dheh qofka muslim haddii nebi maxamed sidaa lagu leeyay innaga maxaad u malaynaysaa markaynu soo soonnay ee salaadnay caynkan haddii nebi maxamed oo intuu diintan u dagaalamay oo naf iyo nafiisba u huray oo 23 sannadood waday la yidhi arrinku hadduu kuu dhammaystirmay waxaad ku gebagabaysataa baa la yidhi ilaahay ammaantiisana ha ka daalin wixii kaa uun gaabis uun si uun kaa noqon karana waxaad tidhahdaa ilaahayow intaasaan awooday istikfaar iyo toobad la kaalay nebi maxamed isagoo ta'wiilinaya bay culammadu yidhaahdaan suuradda tan ayuu salaadihiisa wuxuu rukuucda iyo sujuudda markuu tasbiixsado markaynu rukuucsanay maxaynu idhahnaa subxaana rabbiya alcadiimi subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim baa ka mid a markaynu sujuudsanayna subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa wuxuu ku dari jiray nebigu inuu yidhaahdo markay suuraddani kusoo degtay gadaasheed subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir lii ayuu ku dari jiray markuu tasbiixda hore dhammeeyuu yidhaahdaa subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik ilaahayow xumo ka hufnaantaada iyo waa kuu tasbiixsanaynaa waa kuu mahadnaqaynaa allahuma kfir lii ilaahu dembigaygana dhaaf ayuu ku dari jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idan waxaynu leenahay waxaynu acmaal soo samaynay oo dhan waxaynu u baahannay yay isheenna ku buurmino inaan is odhanin bildhan baa soo taagnaydeene aan idhaahno gebagabayno ku nidhaahno ilaahayow naga aqbali taasaanu awoodnaye intaad xaq noogu lahayd maanan gudanin addoommahaagii baanu nay adaa kariima oo raxiima oo ghafuura ee ilaahayow intaas aanu awoodnay intaa naga aqbal oo noogu naxariso aan intaa tamac ku raadinayn janno aynu ku gallo waxaan ku soo gebagabaynayaa acmaashu markay dhammaato siiba tanaynu maanta ku jirnay soonta ah wax lagu qashinka lagaga hufaa jira shawaa'ibtii raacday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya ibnu cabaas baa wuxuu leeyahy farada rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam zakata alfitr nebi maxamed wuxuu farad yeelay zakada afurka sakaatulfitriga maxaa loo farad yeelay طهرة للسائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
وحديث أبو داود ابن ماجه بصوصار شيخ الألباني حسن صحيح بميلك الشاقي نبي عليه الصلاة والسلام وحلي هي زكاة الفطر هو الزكاة قفك مدحي سالغا بحيو زكاة كلنا مال كالغا بحيا من نوا وحي حولات كبحينيس من نوا بيرهد مدحا لغا بحيا مدحا قد زكينيسا كو وحو النبي يقول وحي تاي وطهرة للصائم قفك الصومن أي طاهر يليسا وحي كم يليسا كنظيفينيسا من اللغو والرفث بشي أينو كجرني وحي اللغو يا هذا التراي نقبحي يا وحي الرفث يا فحمي نقيري انت إلهي وحي نقم يلي زكاة الفطر سيسون كأنه قروح له حق الربي وقبطه وحي الرفث يا اللغو نقدعي وحل يلي الزكاة ير وهل قلان وهل صاع لبدا ساعة والله اسكو داري أفرتود أي هل ساعة dadku imka wax ma galaamayaan waxbay miisaamaan miisaanku waanu noqon karaa waanu ka yaran karaa waayo miisaanku density-ga shaygu ee miisaanku ku saabsan yahay cufnaanta shayga midhaha markay cusub yihiin hadda la soo gooyay iyo markay muddo yaalin xataa way kala culus yihiin ولذلك قلان مدو عصب يا قلان مدو قديمي وكلا عصب وكلا علسين هداد ميزان كسارته نوعيات كودنا marka galaanka lagu shubo qaarna meelo daldaloolay leeyiin qaarna waa yar yaro meesho dhami way buuxsamaysaa idan markastaba galaamaynta iyo miisaamayntu isku nooc maaha walidaalika baa waxaad arki doontaa wadaadado qiyaas kala nooc ku sheegi doona qaar yiraahdaa 2 kiilo iyo 100 gram qaar yiraahdaa 2 kiilo iyo 500 gram qaar yiraahdaa 2 kiilo iyo 8 inahay sheegaan ilaa 800 900 gram ugu badan يعني وما دون 3 جرام كلي waxa raashin la cuno oo dhan ku kasto oo la miiso 3 kiilo saac way ka badan yihiin mid kasto aad miista ama garow miisa ama haruud miisa ama waxa doonto miis halkiisa saac 3 kiilo way ka badan yihiin hal saac marka haddaad 3 kiilo bixiso waxa weeyaan in sha Allah waxa la huba kulliba inaad ziyaado bixisay haddaad dee miisayso oo ka yaraynaysan aday ku jirtaa ama 2 badh bixi ama 2 rubuc bixi ama 2 intaad bixinayso waxaad bixisay iyo miisaankiisu intuu saaca ka leekaanaya ku xidhantay haddaba intaa yaree raashinka aad bixisay ee beerhead qof kasta madaxii laga bixiyey waa jabrun lisiyaamina waa waxaynu ku kabayno soonkeenna walidalik baa wakiic ibnu ljaraax xaafidkii ama caalim حديث كها وكيع بن جراح وشيخ الإمام الشافعي إمام الشافعي شيوخ دي سنين كمية ويان محدثين توا وينيدنا أيها وحلقش سوق النقلية ابن عساكر ابن الجوزي يا إمام النووي في مجموعة تبوا وصار نقليانه وحورن شري زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود نقصان الصلاة waxa laga sheegay inuu oran jiray zakatul fitrigu bisha ramadaan waxay u yihiin labada sujuuda sahwiga siday u yihiin salaada yaani salaada markaynu xogaa yara khalkhalnaa wax qasqasno waxaynu ku kabnaa maxay laba sujuuda sahwi baynu ku kabnaa in wakiic ibn jarrah wuxuu leeyahay nuqsaantii salaadaba hadii laba sujuudood lagu kabay soonka nuqsaanteediina waxa lagu kabayaa maxay زكاة الفطر كما لو كبايا هذا أيها الأحبة وحن لنا عموما أعماش صالحة إنه لنمي إنه إلهي سلهر تاغي إنه مرك الله يقول حق إلهي ووحير مرك الله يقول إنك أنا وحلقيا بين إنه ددالي ولذلك وحنوبة هنين إنه إلهي بريدي سبض إنما المهن نوصي هريا ما المها كدم بيا رمضان بين الله ينقى أقبله وإنه بريدة بضينه الله بين إنه استغفار تبضينه كده بقينه بحق الله على هيدين إلهي سبحانه وتعالى استغفار تاينا قب مصحه صدح أنا إن لبورنان وعجبي غروران وينقول دعين أفر inaynan camalka goynin aynu isbaatino oo sii wadno
أعماشها صالحة إنك ودت تجين قيام الليل كيها كتجين حتى هدات بين كي توسي كري ويدو فيتك هرب سيتك هو بنانته هي وحي عشاء دنبيات كتابة وكو قيام الليل مركز عشاء تكتو لبض السنة عشاء تكتو هدات دوني صدح تكو أو شنتكو أو تدبتكو أو سقالتكو أو كوبية تبنتكو أنت دودتكو هدات دون تمركز هبين كي سيحنيسو سيتكو هدات نم ونكسنت هو صوكي عكرة سقط الحكو عثلث الليل كتكو إلهي وأقبله هدات تمرتكو غيرتهي صلاة الصبح آذان كهورا ونكع ونص ساعة مالها أنت تكهر ريسو وحي أتكن كرتوتكو هكود التجي هنقول ننقف رمضان تنا تاجنون مرو تراويح تكدي مرو قيام الليل كتكدو أنت كلام عن صلاة بتكنين هنقولن ويفر الكدبدي تصو فض بدن النبي بيقول حلي عليه الصلاة والسلام صلاة لتكدو فر الدبدي وحو فض بدن قيام الليل كدي تنها بين كل واقعه تنها بين كل تكدو صدقاتك وحبها كتجين وحات بحين كرت لبح صونتها إلابي شوال قدر عرفة قدر أدانت حج كتجين عاشورة قدر خميسية سنين هدات سوامي كرتصون صوم داود هدات سوامي كرتصون خاطير بارك يهدى كل دود السبا صوم داود وعافمات كوفي عيني هي إن مالنا صورنا ومالنا نختار مريكنا كليب وصوت وبيبان أركيو ضاد عين كاسية وضع على كل حال وعبادات إلهي كوت الماما إلهي لقو عابديو هكود التجين وحين لنا مركز هدين نكود التجين ينا وحي الماما يسا أستان الطهي عبادات كأني هرينا لا أقبلي والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم تينين وكبيرين إلهي وحن كبر ينا سبحانه وتعالى إنه عبادات كأني قوض أقبله صون يا الصلاة يا الزكاة وحن لبحنا بين ربنا أقبله انت حق ربي لقى أقبله إن الله ينقدره انت النار تلقى حرية بشتان إن الله ينقدره dadka muslimiinta dhamaantood ba ilaahay u naxariisto xaq in rabbi ku toosiyo kuwii kitaabka iyo sunnada raacay in alla ka yeelo kitaabka iyo sunnaha in ummadda muslimiinta way filiqday ilaahay ku walaaleeyo meelay joogtaba in xaq alla tusiyo kuwii diintooda ku midoobay raacay in alla subxaanahu wa tacaala ka yeelo gaala waa kibirtay in alla ka dhiciyo intii gaala alla ka reebay in alla ka yeelo صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين